لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله ومحمد عيقة iyo mar kale iyo kulankeeni saddexaad ee barnaamijkeeni weynaa ee raad reeb ee ujeedadiisu ay ahayd tala wadaag iswaraysi iyo wada sheekaysi waad ku mahadsan tihiin kulankan qiimaha badan iyo madashan barakaysan ee aad soo ajiibteen imaanshaheeda ilaahay kasoo kow mahadiisa waxaa mahad iskale ustaad Ibrahim waa beri oo naga aqbalay codsigii aan u dirnay ee ahaa inuu nagala soo qayb galo kulanka saddexaad ee barnaamijkeena raad reeb barnaamijkan raad reeb waa barnaamij yani noociisu uu caadiyanba uu ku yar yahay amaba saan odhan karo maba jiro oo kama jiro degalkeena Soomaalida oo marka la eego shaqada iyo ujeedada barnaamijka loo aasaasay barnaamijkan waxaynu doonaynaa inuu noqdo ujeedada ugu weyn iyo purpose-ka ka dambeysa ay tahay barnaamij caam ah oo ballaaran oo dhammaan bulshada oo dhan taabanaya oo aynu ugu talagalnay inaynu hadba ku soo casuubno dadyoga aynu bidayno inay hayaan fariimo muhiima iyo dhambaalo nolosheena horu socodkeeda wax ka taraya dadyogaas oo ah hal doorka bulshadeena fiil walba iyo majaal walba hadday tahay dhanka culimada hadday tahay dhanka ardayda hadday tahay dhanka waalidka hadday tahay dhanka shaqaalaha fiil iyo majaal walba oo nolosheena ka mid ah oo bulshadeena yani ay u qaybsan tahay in dadkeeda hal doorka ah ee yani muhiimka ah ee fariimaha aadka nolosheena u taabanaya haya inaynu ku soo casuubno si ay markaa ay noola wadaagaan in dhambaaladaasi nolosheena sida gunta ah u taabanaya barnaamijka markaas si guud waa intaa barnaamijka waxay sponsor gareeyay oo yani maalgeliyay amaba se gacanta ku haya macadka Mindset Institute oo ah platform iyo madal ka shaqeysa arrimaha youth empowerment programmeska sida dhalinyarada yani hodantinimadooda loo horumarin lahaa ee loo soo bulshada loogu soo bandhigi lahaa inay dhalinyaradu yihiin yani cududa horumarkaba ka dambeysa ee gacanta ku haysa iyo sidoo kale akademiyada hub academy leedahay ee ka shaqeysa arrimaha technology iyo softwareska si aan markaa barnaamijkeena iskaga guda galno waqtigu kooban yahay habdhaca barnaamijkii qaabka uu soconayo si aynu isula soconno waxaan idinku wareejin doonaa Cabdishakuur Xarbi oo bal waxoogaa daqiiqado kooban inoo faahfaahin doona qaabka uu barnaamijku u socon doono intaa kadibna waynu iska guda galaynaa wad mahadsantihiin barnaamijka raad reeb maxamed igaa inoo faahfaahiyey ujeedadiisa iyo siduu barnaamijkan ujeedadiisa waxaan doonayaa inaan idiin sheego sideen hore ugu soo dhaweynay ustaad Ibrahim waa beri ayaa caawa martida barnaamijka noo ah oo aanu garanay inaynu ka faa'iideysano aqoontiisa runtii ustaad Ibrahim waa beri waa ustaadka qoray buugga dhabar adayg oo runtii aad ka helayso xarunta Hillbrise buuggan uu si weyn uga hadlayo mawduucan in caawa xaggan joogo caawa mawduucan joognaa waa jidka isbedelka buuggan si weyn uga hadlaya waana qoraaga buuggan sidoo kale ustaad Ibrahim waa beri waa wuxuu ka mid yahay asaasiyaasha maxadka PhD Center oo loo yaqaano marka loo soo gaabay PhD Center oo ah Pacific Human Development oo inta badan ka shaqeysa ariga Mareykanka USA oo ustaadku markaas uu si saacadiga u degan yahay xaggaas maxadkaas ka shaqeeya oo runtii barnaamijyadan dhalinyarta lagu horumariyo inta badan aynu inaga aadka muhiimkana u ah ay bixiyaan waxaan doonayaa ustaadka inaan kusoo dhaweeyo oo barnaamijku wuxuu inoo qabsoon doonaa insha allah daqiiqada insha allah siin doona ustaad Ibrahim waa beri oo mawduucan inoogu gudageli doono kadib 4 su'aalood mawduuceena jidka isbedelka marka ilaa 15 minute uu nooga warbixiyo insha allah bal si faahfaahsan kadib 4 su'aalood oo 2 su'aalood kadibna waxaan u geli doonaa su'aalihii weydiin lahaydeen aad baad mahadsantihiin waa dhawahay جزاكم الله خيرا مركا كوباد وحيد كل سلام يا صلاة الإسلام كبودهان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موضوعه جدك اسبدلك أيان
insha allah sida laynoo sheegay waqti yaroo kooban aan dul istaagi doonaa 15 daqiiqo ah jidka isbeddelka shan arrimood haddii aynu isla garanno oo nolosheenna sameeya amba qaabeeya allah subxaana wa tacaala ayayna abuuray ilaahay bayna sameeyey laakiin ilaahay subxaana wa tacaala sidoo kale wax kasta sabab buu u yeelay marka bini aadankana xor baa laga dhigay xaqina waa loo bayaamiyey imtixaanaadka iyo ibtilaaga inay ka mid yihiin haddii shantaa arrimood aynu ogaano ee noloshayna sameynaya qofka aad tahay ee aada hadda halkan ku fadhidid wax weyn ka ah waxaa kuu fududaanaya amba inoo fududaanaya dhammaantii isbeddelka aynu doonayno ama jidka isbeddelka halkay ka bilaabayno yacni maanta qof kasta halkan wuu fadhiyaa laakiin meel buu nolosha taagay ama meel buu maraya halkaa uu marayo iyo meesha uu taagan yahay waqti dheer buu soo jiray in kalena waxaa laga yaaba ilaahay cimriga inoo dheereeya inaan jirno meel kale in haddana istaagi doonaa nolosha isbeddelkuna laba meelood buu ayuu daaran yahay oo mid uu yahay dhanka maadiga amba ashyaada sida dharkan xidhannahay oo aynu beddelno isbuucii 2 cisho 5 maalmood guryaheenna oo aynu alaabta ka beddelno kabahayna oo beddelno isbeddelka maadiga ah shaqadaynu beddelno midna waa isbeddelka macnawiga ah oo ah midda aynu u dan leenahay aadkana u muhiimka ah waxaa laga yaabaa in badan marka la yidhaha isbeddel baa laga hadlayaa ama jidka isbeddelka in marar badan ay kugu soo degdegaan talo maanta ma dariiqii barwaaqo soorankaa la tilmaamaya amba ushii sixirkaa la isku dhiibayaa ee tijaar lagu noqon lahaa waayo inta ugu badan waxaa maskaxdeena sawiranaysaa waxa weeyaan isbeddel haddii la rabo amba isbeddelkaa jidkiisa la qaadayo talama dhankii maadigaaga ah laakiin dhankaa ka muhiimsan baa jirta oo ta maadigaana kaa caawinaysa ta macnawigaana kaa caawinaysa ta adduunyada kaa caawinaysa ta aakhirana kaa caawinaysa noloshana dhan naga taageeraysa taasoo ah ta macnawiga ah ee gudaheenna ah marka inta inaan isbeddelka u iman amba shantaa arrimood u iman sidoo kale soomaalidu waxay tidhaahdaa lagu doori habaarna way noqotaa ducana way noqotaa oo waa sidii kolba loogala jeeday haddaan ku idhaa amba qofku idhaa lagu doori waxaa laga yaaba inaad habaar u marayso laakiin duca baa dad u qaadata ka waran labaduba way noqon karaysa oo marka halka waxaan ka fahmaynaa in dhanka tabanna la isku beddelo ee xun ee liidata dhanka togan ee wanaagsanna in la isku beddelo waxaan halkan u joognaa maanta rajeynaya waxa weeyaan inaan dhanka wanaagsan rabno inaan isku beddelo haddii uu jiro qof aan rabin inuu isbeddelo gacanta ha taago alxamdulilah dhammaanta isbeddel baan rabnaa albaabkan islahaa lasii furo haddii jiro qof aan isbeddel rabin waaqaca iyo xaqiiqada ayaa ah dhammaanteen inaan isbeddel rabno aniga idinla hadlaya iyo dhammaanteen qof aan isbeddel rabin ma jiro laga yaabo maanta inuu qof halkan u iman waayo is yidhaahdo aniga mawduucan iguma saabsanaa sababtoo ah anigu mar horaan isbeddelay taasina waa fahan qalad soo ma laakiin qof aan heerka doonta nolosha taagnow mar walba isbeddel ayaad u baahan tahay halkan waxaan ku hayaa mobil yar oo la idhaha danka hadalba halka looga yaqaano soo ma halkan kalena waxaan ka hayaa mobil kale oo iphone la idhaha soo ma waxaa laga yaabaa maanta inaad indho kale kan ku eegaysaan laakiin waxaad jirtay waqti aan sii fogeyn oo indhaha kaa aan ku eegin aan kan ku eegi jirnay qof kastaa ku hamiyi jiray inuu kan helo tale maxaa isbeddelay keena lacagta le keena madaxda ah qofka kan haystaa wax weyn buu haystay laakiin maanta kan danku hadal baa la idhaahdaa amba danka hadal haddaanu qofku kan sidana iskuma arko inuu mobil sito amba wax u dhow kan sidaa u ballaadhan wax badan ismay beddelin labadaba weli waa lagu hadli karaya laakiin waxa weeyaan isbeddel baa dhacay bas kani halkan kamuu soo boodina hal mar sidan muu noqon kan laftiisana qaar baa ka horreeyay in badanoo kalena waa u dhexaysay
waxaasoo dhan waxay ku yimaadeen oo farsamo la bedelayo maalinba in yar dabeetana waxay yidhahdaan kolba new version adigu ma doonaysaa inaad version cusub markaa aada u beddesho dadka qaar baa laga yaabaa 10 sano 20 sano inay halkoodii joogaan soo ma waxaa jira 3 qof oo dhalinyaro saaxiib ahaa dabeetana nolosha isku mid bay ahaayeen isku xaalad in badan oo idinka mid ah halkana way leeyihiin asxaab ay nolosha wax badan ka sameeyeen dhanka dhaqaalaha dhanka aqoonta dhan walba 3 qof ee saaxiibka ahaa mid waxaa la odhan jiray caame midna caadi midna cawaale laakiin noloshooda mar dambe ayaa si ay ku bilaabantayba isbeddelku meelunbuu ka bilowdaa si ay ku bilaabantayba mid laba ka mid ayaa wuxuu bilaabay isbeddelo yar inuu sameeyo tallaabo yar buu qaaday maalinba tallaabo oo laakiin dhankii wanaagsanaa waa master cawaale halku mid kale oo caame ah uu bilaabay tallaabooyin dhanka taban ah isagoon is ogeyn saaxiib qaldan balwad yar maalinba wax yar muuqaalo aan u daawan jira isma ogaa laakiin maalinba wax yar baa ku bilaabanaya yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattabicuu khuduwaati shaydaan ayuu ilaahayna leeyahy khuduwaadka shaydaanka amba cid kastoo ku hadlaynaysaa ama naftaada ha noqoto ama meel kale ha kaaga time ma dareemaysid ilaa natiijadu ay hal mar soo wada baxda mooyaane ka saddexaad oo master caadiya oo sidan u badanaya halkiisi buu iska joogay waxba muu bedelay waxna muu soo kordhin waxna muu yaraynin dabeetana bilaa tegay 5 bilood 10 bilood sanad iyo badh dadku weli may dareemaynin wax isbeddela ka muuqda laakiin isbeddelku maalin walba wuu socday saddexdoodaba mid un baan isbeddelayn labada kale midna dhanka togan midna dhanka taban 3 sano ku dhowaad amba 30 bilood ku dhowaad waxa si fiican u muuqatay farqi weyn inuu saddexdooda u dhexeeyo midna sidaasuu kor uga baxay midna hoos buu baxay midna garaafkiisu weli uu siman yahay dadku hadda way arkaan indhuhu way qaban karayaan dhaguhuna way maqli karayaan laakiin muddo yaroo dhowr bilooda ka hor xataa lamana arkeen lamana dareemaynin markaasaa laga yaabaa in muuqaalkii hore dib loo daawado sawiradoodii afkaartoodii markaasaad arkaysaa farqiga u dhexeeya balwadii uu baranayay kan maalinba akhlaaqad xumaadkii maalinba cuntadii dheere aan caafimaadka lahayn waqti lumiskii faraha badnaa baraha bulshada kan kalena dhanka salaada dhanka jimicsiga cunto caafimaad qabta waqtigiisu ka faa'iidaysanayay lama dareemaynin ka kalena sidiisuba halkuu fadhiistaa halkiibuu saaxiibkiisa la fadhiistaa intuu cuni jiru cunaa xilliguu seexan jiru seexda intuu daawan jiru daawadaa markaas 30 bilood kadib saddexdoodii mid waliba si fiican baa la arkaa farqiga u dhexeeya taas waxay yidhaahdaan marka compound effect amba taraakuma aan la dareemaynin oo hal mar dambe soo baxaya isbeddeladeena qaarkood 5 sano 6 sano soo baxaya waa sababta dadku markay isbeddelaadka u sameynayaan ay dhaqso ugu niyad jabno exercise baad rabtaa jimicsi inaad miisaanka iska rido dabeetana 3 bilood baad oraday weli sidaadii baa tahay waa niyad jabaysaa laakiin isbeddelku saa kuma yimaado ma ogid isbeddelku wuu socdaa laakiin dadka waxaa lagu kala saaray waxa weeyaa sida dhabar adeegooda u kala badeeya xagga dambe mar dambe ayay natiijada hal mar soo baxdaa sida 3 saaxiib oo kaleeto intaanan weli 5 arrimood u iman haddii aad nood iyo qalin haysataan qaacidada isbeddelka si camali ay noogu noqoto waxaan sheegaynaa oo halkan aad ugala tagtaan qof kastaaba dariiqii isbeddelka u mari lahaa waxaad isku daydaa inaad qorto 4 arrimood oo isku geyntooda isbeddelka qaacidadeeda ay tahay oo midda koobaad ay tahay waxaad qof kasta u qortaa 3 shay oo aad noloshaada rabtay inaad ka beddesho 3 shay oo aad rabto inaad joojiso gebi ahaan noloshaada aad ka saarto gorgortan ma gelinaysa 3 shay qaarkii baa 5 heli doona amba 6 3 ugu daran ka soo qabso haddii aad midh amba 2 dhaafin weydo ilaa berri waxaa laga yaabaa inay kuu soo baxdaa 3 gaadhsiiso laakiin 3 qoro aad rabtay inaad joojiso gebi ahaan noloshaada aad ka saarto dhan walba ka fikir markaa 3 qorayso dhanka qoyska ka fikir dhanka dhaqaalaha ka fikir dhanka shaqada ka fikir dhanka caafimaadka dhanka cibaadada dhanka asxaabta dhanka akhriska dhanka aqoonta dhan walba ka fikir xataa cuntadaada xataa waxaad cunto dabeetana waxaad tidhaahdaa 3 shay oon doonaya noloshayda gebi ahaan inaan ka saaro totally inaan joojiyo 3 markaad ka qorto waxaad ku xigsiisaa 3 kale oo aad doonayso noloshaada inaad kusoo kordhiso
haddeer oo aanad hore u samayn jirin laakiin maxaad ka garan karaysaa riyadaaday ahayd marar badan baad ku hamiday ilaa carruurnimadaadi baad jeclayd asxaabtaadaad ku aragtaa marar badan qof kale waad jeclaysataa amba cid baa kugula talaysa marar badan amba qof baa imaka talo ku weydiiyo kuhi ila tali dabeetana waxaad kula talin lahayd waxaasaad u baahantay adoo meelahaasuba ka fikiraya bal 3 waxaad soo heshaa noloshaada aad isleeday kusoo biiri oo aan noloshaada ku jirin dhan walba iyadana ka eg haddaad 5 kuu soo baxdo 3 ugu muhiimsan qoro mar kale 3 kale haddana 3 aad doonayso inaad yarayso weeye markan labadii hore waxaa mid aad joojinayso iyo mid aad kusoo biiranayso kan waad already waad ku dhex jirtay laakiin waxaad rabtaa inaad dhinto inaad yaraysid wax badan baad ka isticmaalaysay waxaad ka eegtay markaa aakhiradaada iyo adduunkaaga manfaca uu leeyahay amba waxaad u eegtay waxaas inaan laga maarmaynin laakiin badnidiisu inaad dhib keenayso marka waa kugu badnaa baraha bulshada ka mid noqon kara tusaale qaar kaloo badan baa kusoo bixi kara baraha bulshada waa balaayo loo baahaya sooma kama maarmi karano laakiin waxaad isweydiisaa talo inaan yareeyo ma u baahanay 3 shay oo inaad tahay inaad yarayso 1 2 3 ugu dambeyn waxaad qortaa 3 ay tahay inaad kordhiso kan waad badinaysaa kii hore waad yareynaysay laakiin kan waad badinaysaa talo akhriskaagu siduu ahaa aad buu liitaa waan badinayaa cibaadadaadu see ahayd aad bay u liidataa waxaan rabaa inaan badiyo 3dan waad badinaysaa haddii 5 kuu soo baxaan 3 ugu muhiimsan qoro labada hore isbeddelkay bilowga u yihiin inta badan labada dambena horumarka iyo isbeddelkuna ma kala maarmaan haddii horumar aad aragto waxbaa wax laga bedelay dal ha noqoto shirkad ha noqoto qoys ha noqoto qof ha noqoto haddaad horumar aad aragto waxbaa wax laga bedelay horumar ma jiro ilaa isbeddel baa jira isbeddelkaasina ma jiro ilaa ama dib u dhac ama horumar baa jira marka 6 haddaad qortay oo isku geysa 12 kuu soo baxdo 12kaas isbeddelkii ayay u dhigmaan waxaa laga yaabaa muddo kadib kolba in yar marba qayb kuna samir sanad bilo 2 bilood hal mar 3daba inaad wada joojin baa laga yaaba laakiin aad ku kala horeyso kan ku hormar meel baad kaga soo hadhay ka labaad meel baad kaga soo hadhay realistic waaqic noqo hayso odhan hal mar isku wada qaad 9kaba laakiin kolba mid kala joojinaya amba kala kordhinaya amba la kordhinaya ayaad mid u dul istaagaysaa mid kasta markaad hubiso inaad meel kaga ku hubsatay ayaad kii labaad u tegaysaa haddii aad sidaa samayso oo 3dii kaa dhammaato 3 kale raadi 3 cusub 3dii hore waad ka adkaatay waad joojisay 3 kale tale ma jiraan inta inaad joojiso haddaad saa ku wado waxay ay caddayn u tahay oo aad arki doontaa si fiican kugu muuqan doonaa noloshaada inaad socotid intii hore waxaa laga yaaba marar badan inuu shaki naga jiray talo miyaan socdaa mise waa taaganay 5 sano 10 sano miyaana dhaqaaqaynin noloshana saan u badan ee comfort zone bay ku jirnaa sooma mandaqatul ammaan amba goobada xasiloon oo waxaan isku wada eegnahay qof kastaaba qofka kale ka agdho marba haddaad weli saaxiibkaayo kale tahay waxba kama maqnaa taasina waxaa caddayn u tahay markaa inaan isku wada dayano sababtan iskugu wada eegna weeyaan Facebook isku waxbay ku wada qornaa isku waxbayna aqrinaa isku siban u fikirnaa sababtoo waan is ilaashanaa laakiin haddaad sidan samayso waxaad arki adigoo soconaya adigoo taagnayn baad si fiican u arki doontaa marba haddaad socotana waxaad caddaynaysaa inaad nooshay nolosha si fiican baad u dareemaysaa marka qaacidadaas haddii aan camal u sameyno biidni illaahi oo aad joogtayso jidka isbeddelka qaacidana ka bilaabanaysaa ugu dambeyn 5 arrimood ee nolosheenna sameynayay amba qaabeynayay ee haddii ay tahay in 5taasoo keliya in aynu mid kasta sidiisa uga taxadirno inu ogaano iyadana nolosheenna aan dareemayno jidkan u marana iyo isbeddelada ku dhacaya ta koobaad waxa weeyaan fikirka isla 5 arrimood oo tallaabo kale lagu daro waa 6 tallaabo buugu ka hadlayo laakiin qaabka aan u dhigaya waxa laga yaabaa inay ka duwan tahay ta koobaad waa fikirka inagu wax kale ma nihin ilaa sidan u fikirayna mooyaane afkaarteena in badan noloshayna qaabaysa fikirkaaga tayadiisa waxaa la yidhahdaa 60 ilaa 70 bayn maalin kasta fikirnaa oo fikir oo weliba tabnaan iyo negative u badan waxaa laga yaabaa fikirkaasi inuu marar badan wahsigaaga dib u dhigashadaada shakigaaga cabsidaada hanyaraantaada intaba inuu sabab u yahay marka afkaartaadaas sidaad u horumarinayso iyo sidaad ugu fikirayso talo maxaa tayeynaya fikirkayga maxaa fikirkayga liida sababaya 5 arrimoodna mid walba mid buu ka kala saameynaya overlapping mid walba ka kala ayuu sababaya haddii mid meesha ka baxo ka kala saameynaya marka fikirkaaga qofku wuxuu yahay siduu fikirkiisu yahay
talabaad go-aanada nolosha aan qaadanayno inagu wax kale ma lihin ilaa go-aanadeena mooyaane go-aanada aba waalidiinteena haynoo soo gaadhaan iyo macallimiinteena inagoo yar yar ama ha noqoto kuwa markaad weynaato adigu aad qaadanayso waana waxa bini aadan inay naha caddaynaya bini aadanku waa xor malaa'igta waxayn kaga duwanay go-aaneen leenahay dabeetana ilaahay wuxuu xor inooga dhigay markii xaqa laynoo bayaamiyey waxayn doonno inaan sameyno laakiin mas-uuliyaddeeda inaan qaadno go-aanadaasi labay noqdaan kuwa fudud oo yaryar oon mar walba sameyno iyo kuwa culculus kuwa fudfudud barbaarinteena inta badan la xidhiidhaan qof kasta subaxi uu kaca u cadaydaa adigoon isoogeyn baad aragtaa adigoo dhammaysta cadaygaagii kabahaagii xidhay waa go-aano aad qaadanayso oo laakiin fudfudud ood ku barbaartay go-aanada culculus akhriska salaada horumarka wax badan oo nolosheena kamid a waa go-aano culculus ood iska dayn karaysid waxaad xor u tahay inaad tiraa maxaa i dhibaya anigoo seexan karo soo toosi karo iska noolaan kara waxaanaad xor u tahay inaad tidhaahda may anigu dhalinyar baana waan xooganahay wax badan baanu ilaahay u fudeediyey dunidana ilaahay aanu ii sakray inaan caamiran hogaamiyo dalkana cid kale ma sugayo inaad su-aasha isweydiisay inaad taa kaleso waa laba doorasho taa doonta aad qaadanayso idin nolosheena go-aano ayaa sameeya ilaa ay heer gaari karaan xataa qadarteena mararka qaarkood inay wax ka bedeli karaan oo ilahay wuxuu ina leeyahay xataa mararka qaar sadaqadaad bixinayso iyo qaraabadaad xidhinayso iyo waxaad wanaajinaysa xataa waxaa laga yaaba in cimrigaaga ay wax ka bedesho idan go-aanadu waa wax aada iyo aada nolosheena u saameeya go-aamadu waxay leeyihin markaa caqabado iyo fursado wax caqabado waa inaad go-aanada gaadho iyo wax kuu diidaya caqabadaha maxaa ka mid ah cabsida caajiska cudurdaarka fursadaha maxaa ka mid ah inaad xog hesho ogaalkaaga kobciso inaad xirfado barato kaa caawinaya marar badan go-aamadaada inaad gaadho iyo xamaasada iyo dhiirigelinta oo laba meelood ka imanaysa mid gudahaaga ah iyo mid dabadaada ah ta dabadda inaad weydaa laga yaabaa laakiin mid aad cidna ka baryan baa jirta oo ta gudahaaga oo dadaal badan u baahan qaar badankeen waxaa laga yaabaa inay marar badan fursadaan u helo waalid badan amba dhaqaalo badan amba cidina garab taagan laakiin marar badan jaaniska ma helo waxaa laga yaabaa mid dhiirigelintaa dabadda oo dhan haysta inuu ka fiicnaado dhan walba nolosha mid aan maxabad dhiirigelin aan dabadda inta badan ku haysan ilaa gudihiisa mooyaane oo isagu kaca oo isagu lugihiisa ku istaaga oo isagu dhaqaaqa marka go-aanadu waxay leeyihin caqabado iyo fursado go-aankuna waa laba mid maraad ku dhaca iyo mar ku dhabar adeeg ah ku dhac uu inoo fududiya inta badan inaan wax bilowna qeerada sanadka cusub maxaa la sameeyaa boqolaal hadaf bay dejisana waa sanadka cusba laakiin sidee loo dhammaystiraya sidee loo joogteynayaa buu dhibku ka taagayay markaa waxna waa ku dhac waxna waa ku dhabar adeeg mid walbana waxbaa kaa caawinayo amba waxbaa kuu diidaya 3 deegaanta inagu xeeran Jim Rohn la yidhaahdo wuxuu odhan jiray qofku adigu wuxuunbaa tahay celceliska 5 qof ee kugu xeeran celceliska 5 qof ee kugu xeeran horena waynu tilmaamnay soo maa laakiin xadiis baa isaguna nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam uu leeyahay qofku wuxuunbuu yahay diinta saaxiibkii muhiim jiddan saaxiibkaaga saaxiibku maaha kan kula socdo keliya xataa waa role modelkaaga cidaad ku dayato iyo cidaad energygaaga iyo waqtigaaga ugu badan aad siiso iyo waxaad daawato cidaad inta badan ka daawato idan deegaantaad samaysanaysid muhiim weeyaan iyaduna oo waxaa noloshana inta badan qaabeynaya horena oo qaabeeyey hadda kadibna qaabeyn doona 4 waqtiga inagu wax kale ma nahay ilaa daqiiqada mooyaane cimrigaagu iyo waqtigaagu waa isku mid sida daqiiqadaha yara noloshaada soo maraya aad u maareynayso uga faa'iideynayso isbedelkeena iyo horumarkeena iyo guusheena iyo fashilkeena yihiin oo aad subaxii markaad soo toosto ilaa habeenkii inagu muslim ahaan waqtigan ilaahay baa inoo qaabeeyey 5 salaadood laakiin su-aashu waxa weeyaan salaadan iyo salaadan inta udhexaysa maxaa kugu jira inaan maqaaxi fadhiyo ta kalena inaan social media ku jiro ta kalena inaan ciyaar daawado ta kalena subxaan allah allahu akbar ilaahu noo dambi dhaaf 5 salaadood ee ilaahay inoo qaabeeyey waxaan mid kasta ku dhex buuxino ayuun baynu imakana nahay halkan joogno halkan teginana noqonaysa ta shanaad ee u dambaysa soo shan maa midda shanaad ee u dambaysa waxa weeyaan waa midda intaaba ama beeninaysa ama rumaynaysa oo caadooyinka ama caado samaysa sida loo samaysa habitiska ama caadooyinka odhaahba ahayd marka hore caadooyinkay samaysanaa marka dambena caadooyinka nolosheena sameeya waxa aad ku celcelinaysid iyo qaabkaad u sameynayso iyo waqtiga aad laasimayso iyo muddada aad madayso aad ku sabartay dadaalka iyo juhdiga aad la mid timid dhowr bilood sanad
caadadaaday noqon way kuu fududaan aanad akhiiranna waxay noqon wax kuu fudud isla waxaasunba waxaad noqon doontaana u noqon doonaa adigoo waxba akhriyin baad akhriska caadaysatay dabeetna akhriskii baad isku qasabtay dadaal badan kadib ilaa intaad ka jeclaanayso caado kuu noqonayay hadda waxaad saartay fikirkaaga iyo aqoontaadii oo kobcay oo marka hore maxaad samaysay caado akhris iminkana akhriskaaga muxuu sameeyey fikirkaaga iyo aqoontaada kobciyay dee marka hore caadooyinkaan samaysanaa marka dambena caadooyinkaa nolosheenna sameeya dhammaan afarta kaloo dhan mid kasta hadday ka maqatay hal mid caadadani suurtagal maaha afkaartaadu hadday qaldantay waqtigaaga haddaanu suurtagal ahay inaad sida ugu fiican u joogtayso go-aan haddaanad lahayn deegaantaydana haddaanad u samaysanad ugu talagelin caadada suurtagal maaha haddaad afarta hore ka soo baxdana uma baahnid xirfad kaloo dheeraad ah oo caada samaysaya insha allah inta kale su-aalahan ku dhamaystiri doonaa hadba mahadsantihiin jasaakum allah khayr ustaad adeed baa mahadsan tahay runtii waa qodobo aada u muhiima waxaa jirta su-aashaan laba su-aalood baan anaka weydiin doona maxaa eegana laba su-aalood insha allah kadib waxaan u gudbi doonaa qeybta walaalaha nagala soo qayb gala barnaamijka su-aasha koowaad aan isleeyahay ustaad waxaa dhammaanteen sida iminka aynu isla aragnay dhammaanteen isbeddel baynu u baahan nahay oo dhalinyartu mar walba waxa ugu weyn ay ku tamaniyaan maanta markuu waqti kasoo lama habeenkii iska qoomeynaya online niyo hadda saa sameyn lahaa deetana berisu wuxuu ku fikirayaa inuu isbeddelkii sameeyo markuu markaa isbeddelkii qofkiisu dhaho bilow ayuu markiiba isbeddelkii markaa u diyaargarow suuxii markuu soo toosay markiiba markaa eedeyn buu bilaabaya qofki wuxuuna niyo waddankan aan joogo dhibaatadaasaa jirta sixir barar baa jira iguma habboona imika haddaan joogi lahaa for example Europe oo kale waxbaa ii hagaagi lahaa markaa eedeyntaas oo kale isbeddelkii qofkii ka hortaagan su-aasha labaad aan ku weydiinayaa aan isku karaaciye waxaa jirta qof walba maalin buu bilaabay isbeddelka oo dhammaanteen aan caawa xaggan u fadhino kuwa isbeddel sameeyey iyo kuwa iminka isla bilaaba ustaad adigu goortaad leedahay isbeddelka waad bilowday oo dhacdo sabab u noqotay runtii keentay caawa inaad xaggan oo kale joogto maalintii aad isbeddelkaa bilowday ee kow kuu noqotay maasha allah waa su-aasha koobaad ee ah waxaan sheegnay in go-aanada caqabadaha go-aanada ay ka mid yihiin maxay 3 cabsi cudurdaar iyo cajis su-aasha markaa waxay tahay taa cudurdaarka nolosheena markaa go-aanadeeda inta ugu badan cid kale dhakada ka saaraynaa mas-uuliyaddeedana cid kale saaraynaa waxaynaan doonaynaa wax walba in laynoo diyaariyo laynoo sameeyo waxayn doonaynaa maxay in wax walba laynoo diyaariyo o laynoo sameeyo laakiin qof waxa yar markaa isweydiinaya bilan anigu ahay qofkii la sugayay qof la sugayo hadna yaad sugay bilaabada adiga ti qofkii isbeddelka keenayaba ka waran haddeen sida u fikirna intaan u fikiri lahayn in anigu aanan haysan fursaddii markaa waa inaan raadsado meel kale halkan kama helayo waxaan doonayay sidaan waalidkaaga maraad eedda saarto maraad macallinkaaga waxbarashada eedda saarto iyo maraad cid kale eedda saarto marka waa cudurdaarka la xidhiidha mas-uuliyadda qofkuna qof walba aakhirana maanta dhinto keligii baa la weydiinaya noloshiisa cid kale laguma xidhayo adduunyadana noloshaada adigaan ku bisila waxaynuna go-aanadu marna adaa lagu gaadhaa marna adiga gaadhay way soo dhaafna xilligii aan yareen ee caanaha iyo sariirta iyo cuntada laynoo doorayay mar haddaad weynaato inaad cid kale wax ka sugto maaha waa in adu go-aanadaada qaato laakiin su-aashu waxay tahay qofku waxaanuu doonayaa maxay tahay xagguu doonaya inuu wax ka bilaabo qofka raba inuu madaxa wax ka bilaabo waa laga yaabaa inuu doonayo jaranjar iyo wiish iyo wax u diyaarsan dabeetana u dhufto dabeetana inuu kor ka soo bilaabo isbeddelka laakiin qofka waaqiciga muxuu doonayaa in xaggu ka bilaabayaa zero buu ka bilaabaya halku taagayay wuxuu ku bilaabayaa wuxuu haysto wuxuuna bilaabayaa waqtigu uu go-aankaa qaato maxaad haysataad awoodi karaysaa buuggaa ma awoodi karaya inaan iibsado mid online aan akhrisan karaya ama maktabadaan tegi karaya ama iskuulkaan tegi karaya
caqabad kastoo sheegato nolosha waxaa la soo helayaa qofkaa caqabad liitay oo ka baxay. dhib kastoo caqabad kastoo sheegato oo aad jira anigu waxaan saa u samayn waayey sidaa iyo sidaa, waxaa la heli mid labada indhood la labada dhegood la oo xaqiijiyo riyaalkiisi. adigoo afartada addimoodba leh alxamdulilah oo caafimaad qaba, dhalinyaro xoog leh, fursado badan inagu xeeran yihiin oo bilaash internet iyo wax walba la aqoon bilaasha, qofka yidhaahdaa waxba ima diyaarsanaa halkan simple waxay kusoo koobaynaa waa cudurdaar ma gaaro isbedelkayga sabab ah, laakiin waan halgamayaa noloshana waxaan dhammaysanaya anoo halgamaya. qof ma jiro odhanaya waan dhammaystay diyaar baan waa inaan dhinto, ma jiraa anoo halgamaya anigoo arkaynin inaan dhowahay. aqoonta lafteedu markastood wax barato hadday jahligaaga kuu muujin weydo aqoon maaha. hadduu akhriskaaga uu qabkaaga xoojiyo ad u malaysa inaad wax taqaano naftaada runu sheega xamaad baran ilaa intaad ka ogaanaysid inaad jahligaaga ogaatin mooyaane. markaa maadaamaan halgamayo waxaan u malaynayaa inaanan garanaynin maalimo gaara, laakiin wuxuun baan xasuustaa un haddaan tilmaami karo inta ugu badan sababahan mawduucan wax uga qoro horumarinta aadanaha ama tababaradan aan u bixiyaa waxa weeyaan xilligan dugsiga sare ku jiray in ahayd xilliga ugu badan ee su-aalaha ugu badan isweydiinayay, jawaabaha ugu badan aan raadinaya aanan heli jirin. dabeetana aan jeclaystay markii dambena inaan anigu jawaabaha qayb ka noqdo oo aan diyaar u noqdo dhalinyarada badan ee iga dambeysa in uu inaan ka qayb qaatay jawaabaha iyo su-aalaha badan isweydiinaya. way iskuullada kuma dhigano arrimaha noocan ee nolosheena taabanaya, laakiin waxay nolosheena nafteena toos taaban iyo xirfadahan u baahan ma dhigano. markaa xilligaasaan dareemayaa halgankayga ugu badnaa. anigoo isla dugsiga aan dhammayn ayaan bilaabay qoraalkayga u horreeya inaan qoro. marka inta ugu badan waxay ahayd in su-aalahay ka bilaabantay iyo caqabada aan dareemayay ayuu ka bilowday, laakiin isbedelkayga ugu badan akhrisku la bilowday amba halgankaygaan isleeyahay meelaha ugu bilowday bugaagta iyo akhriska ayuu ahaa. akhriska iyo shaqooyinka istirka ah, howlaha xataa haddaan hawl haynin in wax kastood qaban karsa iskuulkaagana ha noqotee waa meelaha uu qofku iska heli karayo ama fikirkiisa uu ku kabcin karayo. waynahaas isleeyahay. sida aad ayaad u mahadsan tahay, runtii si weyn ayaad nooga jawaabtay laba su-aalaba. orunoo qofku isma dareemo yani noloshiisa isagoo halgankaa ku jira ayaa laga yaaba in waqtigu yimaado. maanta haddii bilyaneer aada weydiiso ka war wuxuu konaya tilyaneer baan doonay inaan noqdo. marka waa run insha allah inaguna inaan joojino cudurdaarka nooc kasta uu yahay. runtii waxaa la yidhaahdaa fursadaha. innagu waxaan moodaynaa in waddankeena meel ka baxsan ay naga fursad badan nahay, laakiinse innaga ugu fursado badan keliya waanay diyaarsaneen. xertaa kale waxa laga yaaba in loo yaro diyaariyey nidaamkii rag ka horreeya iskugu dabarideen, laakiin inagoo iyadoo dihin baynu haysanaa innagaana markaa ugu fursado badan. marka laakiin indhaheen ku arki lahayn ee caafimaadka qabin baa loo baahan yahay runtii inaynu cudurdaar ka joojino shaqadan ay saa u bilowno. waxaan u wareejinayaa maasha allah. kolley dee warka nuxurkiisii iyo ujeedadiiba waad hesheen. ustaadku aad buu mahadsan yahay. malaha ustaad ibraahim waa berin baad u taqaanaan dee ustaadkay. ustaadka waxa magaciisa la idhahdaa ibraahim aw xasan ismaaciil. ibraahim aw xasan ismaaciil. ustaadku aad buu ugu mahadsan yahay sida quruxda badan ee uu barnaamijka caawa inoogu daadihinayay. anugu intaan halkan fadhiyay arday baan ahaayo dee qodobadii uu ka sheekeynayay ustaadku haddaad iminka weydiiso way qoran yihiin oo waan kuu sheegaya. qodobkii ugu horreeyay ustaadku ka hadlay waxay ahayd haddaan soo khulaaseeyo your thinking, qaabka aad u fekerayso inaad wax ka beddesho. haddaad berigi hore ka fekeri jirtay sida ay wax kaaga hallaabi karaan, maanta waa inaad ka fekertaa si kastoo ay wax kuugu hagaagi karaan. qodobka labaad ee ustaadku ka hadlay waxay ahayd decision, inaad go-aan qaadato. isbeddelkuna sidiisaba waxa uu ka bilaabmaa go-aan. haddaanad go-aan qaadan karaynin dee halkaagaad iska joogaysaa walaalo, cid ku dhibaysaa ma jirto. qodobka saddexaad ee ustaadku inala wadaaga waxay ahayd environmentka, deegaankaaga, dadka aad isku meeraysa ee aad hareeraha iska marinaysa ee kugu xeeran cidday yihiin inaad iska hubiso. haddaad dad aan nolosha hore u socodka xiisayn in aad dee asxaabaad ka dhigato adiguna iyagaad la mid noqonaysa. taa cagsigeeda dad hore u socodka jecel oo xiiseeya haddaad saaxiib ka dhigatana iyagoo kalead la mid noqonaysa. qodobka afraad wuxuu ahaa timeka, waktiga. 24 saac ee maalintu ka kooban tahay ayuu bilyaneerku haystaa, wadaadku haystaa, waraalnuhuna haystaa.
hadba ninku iyo gabadhu sida ay u maalgeliso ama uu u maalgeliyo unbuu wax uga helaya abaalmarin ahaan. marka ku dadaal waqtigaaga inaad isagana aad ma garanaysaa wax maalgashi fiican oo berito mustaqbalka aad u aydo ku horseeda aad ku maalgeliso. qodobka ugu dambeeya ee halka u dhimatay ahayd waxay ahayd habits, caadooyinkaaga. sideedaba waxaa la yidhaahdaa habfakarkaagu waxa uu abuuraa habdhaqankaaga, means caadooyinkaaga. caadooyinkaaguna waxa ay abuuraan oo ay sameeyaan habnololeedkaaga. that means haddii aad habnololeedkaaga iyo natiijooyinka aad nolosha ka heshay aad ku qanci weyday, cid kale ma eedeyn kartid. walaa duruuf baanad eedeyn karin, walaa nasiib xun baanan ku helin, walaa dhaqaale yaraan baan ku helin. habdhaqankaaga wax ka siiyiin. habdhaqankaaga si aad wax uga bedeshana habfakarkaaga aad wax ka bedelaysaa. daasi markaa 5 qodob buu ustaadku si qurux badan inoogu daadihiyey oo aan isku dayay inaan markaa soo ururiyo. ustaadku markii uu bilaabayay qodob buu ku bilaabay inaad maqlayseen kala mooyaan compound. isbedelku sidiisaba bug ma soo dhaw hal mar ma dhasho, si tadawur ah oo qunyar ah buu yimaadaa. taas baan markaa yaro qortay. waxaan markaa aan dib u soo xasuustay kelmadda compound markuu yiri qodobkana uu ka hadlayay. buugaan akhriyo magaciisa la yiraahdo the compound effect. buuga waxa ku jirtay nuxur yar oo aad aan u xiiseeyo mar walbana aan xusuusto marka qodobada noocaas oo kala laga hadlayo. qodobkaasi wuxuu ahaa haddaad isbedelka 100 ka bilowdo macnaheedu dib baad u soo gurmaysaa weey 99 88 waxaan jeedaa 89 adu reefs baad u socotaa. laakiin isbedelku sidiisaba waxa uu ku qurux badan yahay uu macna ku leeyahay inaad 0 iyo wax balaan ka bilowdo, deedna kor baad u soconaysaa. eber ka bilow, halka aad joogto ka bilow, waxa yaraad haysato ka bilow, sida kuugu qurux badan aad kartana bilow. deedna waxaad arki doontaa adiga oo si yaro qurux badan u korayo berito wax noqday. compound effect ka marka anigoo tusaale yaro buugu ka bixiyay soo xasuustay waxa uu ahaa tusaale yaro fudud. haddii imka ay kaniica ku qaniinto, kaniico haddii ay ku qaniinto dee waad u dhimanaysaa iyo virus iyo wixii laga sheegi jiray malaria ka qaadaysaa waad u dhimanaysaa. laakiin maroodi haddii uu ku qaniino dee u dhiman mayso, maroodigu wax buu qaniinaa. taas macnaheedu waxa weeye waxyaalaha yaryar ee dheelsanaysa kaniicadu wax yaro aad u fudud Soomaalitan leg, laakiin qaniinyadeedu way ku dilaysaa. nolosha waxyaalaha yaryar ee aanad dhaadanayn, ee aanad u fiirsanayn, ee aanad mooganayn laakiin aad sameynayso ayaa ah waxa quruxda iyo mustaqbalkaaga bilay ama dilay. marka aad iyo aad walaal uga taxadar caadooyinka yaryar ee aanad dhaadanayn. subaxii markaad soo toosto, markaad shaqadaada tagto, waxbarashadaada markaad tagto, hawlahaaga markaad fushanayso, qaabkaad dadka ula macaamiloonayso, qaabkaad wax u akhrinayso, all of those things ka taxadar qaabkaad wax uga qabanayso. sababtoo kuwaas baa abuuraya isbedelka weyn aad bari doonayso. ustaadku maanta waxa uu wax ku yahay ma hadee shaqo weyn oo hal mar uu qabto natiijo weyn oo hal mar ka helay 2008 bal dib u noqo 2008 baa aqoontan ustaadku soo galay la yiraahdo human development. haddii ustaadku 2019 soo galay hadda maydaan barateen oo maydaan timaadeen xataa, laakiin incremental change ka yar soo socday 2008 9kii 10kii saasay wax soo socday. marka haddaad doonaysa hadda waxaad niyoonaysaa inaad hesho walaal wallahi baan helay ilaahayna waxaan ka baryaynaa inaan ku siininba. that's it. haddaad doonaysa wax qurux badan u dadaalo, nafta u huro, habeeno badan u soo jeedo, maalmo badan u golongol, si yaro qurux badan u kor. haddaad laakiin wax weyn doonaysa waan ka xumahay. labada su'aalood ee marka aan ustaadka raba intaas faalayga ahayd aan doonay inaan ustaadka weydiiyo, midii waxay ku jirtaa mawduuca, midna way ka madax banaan tahay oo si general oo nolosha ay kusaysaa. su-aasha koowaad waxa weeye in ustaadku weydiinay mawduuciisa aan ka soo saaray. ustaad waxa tiri qodobka ugu horeeya fakarkaaga wax ka bedel. dee markaynu waaqiciini iyo bii'adeeni dib ugu soo noqono waxa lagu oranayaa war ha fakerin, waxaan hariya habeen u fakeraa, waxaad ka fakertaa lama fakero, waa lagu waashaa fakerka. conceptka iyagoo dadkeeni ka haysta fakerka waxa la yiraahdaa inaguna aynu mar walba leenahay war fakero waa fakerkiina wax ka bedela, bal sideeba ugu qurux badan oo isleedahay waan isku waafajin karnaa. taas waa su-aasha koowaad. su-aasha labaad aan doonayo ustaadka inaan weydiiyo waxa weeye qof walba nolosha mar way ay tahay oo qurux badan tahay inuu isbedelka bilaabo. sideedabana waxa la yiraahdaa isbedelka laba shay baa cariya. ama qofku culays haysta ayuu ka cararayaa oo culayskan buu doonayaa inuu fududeeyo, ama rabitaan iyo desire baa jiro oo wax ka horeeyo ku cararaya. marka labada midun baa isbedelka inta badan keenta, inuu wax ka cararayo iyo inuu qofku wax ku cararayo. waqti kale oo ma jirtaa ustaad aad oran karto isbedelku ugu mudan yahay oo
alla ilahay markaas bay tahay in isbeddel la bilaabo labadaas su'aalood baan aad u jeclaan lahaa ustaadka inaan weydiiyo kolley madashu way noo furan tahay idinkuna su-aalihiin waad leedihiin بسم الله aad baa mahadsantahay ustaad maxamed cege sida quruxda badan aad marka hore noo soo khulaasaysay mawduucii hore iyo labada su-aalood ee muhiimka su-aasha fikirka ku saabsan sida aynu fikirka u haysanaaba dadka qaarna yidhaahdaan fikirka badan amba waa lagu waashaa iyo hebel u fikiraya un iyo sida la isku waafajinaya arrintaas qofka sidaa la laftiisa u malaynaya inaad adigu fikirayso waxaa laga yaaba inuu kaa fikir badiyo isagu oo inaga nidhi 60 kun 70 kun boo qof kastoo inaga mid celcelis ahaan uu fikiraa haddaanu fikiran qofku waxay ka dhigantahay ma noolaadee xabaaloon baa laga helaa iyo qubuuraha qof aan fikirayn waa fikirkii waa mid mar walbayna huran laakiin su-aashu waxa weeyaan sidee loo fikirayaa fikirka tayadiisa ayaa muhiimadda ah waxaad ka fikiraysaa ma wax ku hagaasinaya hoos ku wadaa ma wax halkaa kugu hayaa mise wax kor kuu qaadaya taas waa in layna isbeddelka fikirku ka bilowdaa marka horena maxay nidhi isbeddel oo dhani waa qof halkiisa jooga mid hoos u socda iyo mid kor u socda marka fikir kollaba waad fikiraysaa laakiin saad u fikiraysaa weeyaan marka haa qofka sidaa u fahansan isaguba uu fikirayaa laakiin su-aasha waxa weeyaan adiga laftaado markan aad fikirayso lagu dareemaya inaad fikirayso kolley waxay ku xidhantahay xaaladaad markaa ku jirto haddii xaaladaad ku jirto aad mararka qaarkood qofku dhabanka iyo gacantaysa saarayo oo marar badan aamusan yahay oo lagu arkayo of course waa laga yaabaa qofku inuu isweydiiyo waayo had iyo jeer waxaan ka cararnaa waxa weeyaan waa nafteenna in isku dayna inaan ka cararno way yartii qof doonaya keligii inuu 2 maalimood guriga intuu isku soo xidh iska dhex fadhiyi kara haddii cuntada loo dhigo maxaa dhacayo talow laga yaaba inuu idhaa de waa xabsi uma u naqaanaa meel la isku xareeyo soo maha ma jiraa qof isagu doonta xabsiga qof isagu intuu shandad qaato uu baxo meel cidlaa taga ama buur ama meel cidlaa taga ma jiraa gacanta taaga hadduu jiro qof u banbaxay keligii 2-3 maalmood inuu keliga ahaado ma jiraa ma jiro gurigaaga laftiisa xataa dad cunto heshan qolos ku soo xidhaa tira halkaa cuntada ii soo dhiga guriga dhexdiisa 2 qof baa gacan taagay waayo had iyo jeer asxaabta badanaan mar walba iskula hadalno hebel xaggaa joogta hebel ay xaggaa joogta taleefonka ugu hadalno social media ugu degdegno tv-ga ugu degdegno maxay ka cararaynaa waxbay ka cararaynaa waa waxaa markay dadku ina arkaan markay odhanayaan hebel uu fikirayaa sababtoo waxaan caado ogno dabeecaddeena ka mida inaan nafteena ka cararno laakiin ilaa naftaada baratood la heshiisad keligaad la fadhiyi karayso isbeddelku kuma dhowaa ilaa aad awoodi karayso inaad keligaa saacado badan aad iska joogi karayso adigoon waali ka baqaynin taasina goorma imanaysaa waa markuu fikirkaagu u hollado dhanka tayada wanaagsan waa markaad aragto inaad wax qorsheynayso waa markaad wax akhrido oo fikirkaaga laftiisa dee waxaad u baahantahay waxaad ka fikiraysaa soo celinayso waa inaad wax gashato output input output waxaad soo celinaysaa waa wixii aad gashato un markaa inaad ogaalkaaga kordhiso akhriskaaga badisid kadibna aad keliya heshid waxay kor u qaadaysaa ogaalkaaga inaad kor u qaadaa waa halku isbeddel ka bilaabaya ogaal nafeed ama naf ogaal inaad is ogaato ma istaqaana adigu sababahay markaan isguursana markaba isku khilaafnaa waa maxay amba sababahan ubadkeena barbaarinteena u liidato waa maxay adigoo cadhaysanba ilmaha ku imanayaa oo taleefon ku hadlaya ciyaar buu sameynayaa waa darbaaxay aan wada aamusin isla dhacdadii buu sameynaya adigoo iska faraxsan dabeete waa ilmo yaro daayaad leedahay waa isla adigii waa isla falkii ayaad marna ku dilaysaa ilmahaaga marna waxaad arkaysaa inuu ilmo yaro waqtigiisa qaadani wey sababtu waa maxay isma taqaanin ma taqaanin markan inaad adigu dhibka mushkiladdu inaad adiga ahayd maad ogeyn ilmaha yar 2 jeerba waa kii uun marna qalad muu sameyn laakiin marna adiga karkabadaadi stresskaaga culayskaagu badan yahay marna adiga xaalad degan ku jiray marka inaad isbarataa iyo inaad is ogaato ood xaalaadkaaga waxaad jeceshay iimahaaga waxaad ku fiicantahay waxaad necabtay iyo qofka kale laftiisa inaad adigu isbarataana waa furaha qofka kale xataa inaad barato iyo ogaalka dadka kale laakiin taas waxay ka bilaabanaysaa intaad adigu istaqaano un marka waxay u baahan tahay markaa marar badan marka yes inta aan kari karano inaanay dadka waalidka oo kale aanay inoo warwarin si aanay inoo odhan hebel miyuu waasho dhabankiina gacanta isku hayaa waan isku dayi karanaa intan meel gaara aynu fikirkayna la tegayno laakiin waxaana isku waafaqaynay su-aasha adoo kooban waxa weeyaan habdhaqankeena ah nafka baxsashada
iyo markaad qofkii weynaa ku arko ayaa iskhilaafaya markaa taasaa keenaysaa su-aasha kale ee ahaydeen su-aasha kale goorma ugu habboon isbedelka mar walba horta si guud u habooyi mar kasta waa inaga nidhi mar walba isbedel baad u baahan tahay haddii xataa aad weydo wixii aad joojinaysay amba wixii aad yareynaysay ood waxoogaa maalmahan isleeday maasha allah aad isku yaro bogtay maxaad u baahan tahay waxaad kordhinayso iyo waxa aad soo biirinayso labadaas mar walba manay jirin labadaas mar walba way jiraan laakiin labada kale mararka qaarkood waa laga yaabaa inaad waxoogaa isku yaro bogto laakiin in yar haddaad haddana socoto wixin baad heli waxay tahay inaad yarayso iyo waxay tahay inaad joogto taana ogaalkan faraha badan baa keeni markaa mar walba horta waan u baahanay laakiin xaalaadka ugu si fiican waxaa ka mid ah isleeyahay xaalaadka caqabaduhu jiraan iyo dhibaatooyinku laba sibay inoo saameeyaan mar wayna niyadjabiyaan oo dib bay inoo reebaan oo balwadeen xataa baranaa oo xanuun bay ka qaadnaa markay dhibaatooyinka caqabaduhu inagu dhacaan marna isbedelkeynaba halkaasu ka bilowdaa oo xanuunka dhibaatada iyo mushkiladda ayaa waxaad leedahay imakaba xanuun iguma yara comfort zonka marka laga baxaya maxay dareenaa uncomfortable yani waxaad leedahay marka xaaladda xasiloomaad ka baxaysaa wax isku day dabeetana waxaad leedahay wallahi waxaan dareemayaa wax aanan awal hore samayn jiraan samaynayo marka goobadaadii baa dib ugu noqonaysa soo ma laakiin haddii dhibaato aanay kuguba yareen sidee bay goobada ku damqay waad ka boodi oo haddana waad ka boodi oo in badan baad boodi waayo xanuunba kuguma yara idan xaalaadka dhibaatooyinka mushkilaadka caqabaduhu waa marar badan nolosheenayna soo maraya waa inaan uga faa'iidaysano maxay dhanka isbedelka laakiin dadka qaar maxay ku sameeyaan waa nafka cararkii lafteedii markaasaabay qaar balwad bartaan markaasuu salaada ka tagaa markaasuu ilaahay kasii fogaadaa markaasuu calaacal dabeetana xanuunkii asalkaaga ku haystay maxaa ka badan ka fikirkaaga iyo adigu aad isku ridaysaa ka badan marka xilliyada ugu habboonta waa xilliga inkastoo mar walba ay muhiim tahay ustaadku aad buu mahadsan yahay kolley waxaanu hadda u gudbi doonaa qeybta su-aalihiina su-aaluhu waxay noqon doonaan 3 aynu hablaha siino inkastoo habluhu yar yihiin labaynu uga dhigaynaa labaynu hablaha uga dhigaynaa maadaama tiradii kale ka badan tahay si aynu inamada u deeqsiino iyo 4 su-aalood oo aynu inamada siino bilaahi caleyk waxaan aada idinka codsanaynaa waa xilli dambe hablaweyn nala joogaan inaad su-aasha ku koobnaataan oo markaa aad microfoonka la wareegto haddaad faallo yar ku darayso faalladaadu inaanay badan su-aasha deedna aad u boodo si markaa ustaadkuna su-aasha kugu soo khulaaseeyo marka waxaan u yeedhaya waxaan u baahanahay ustaad Ibraahim Bulshaawi si uu u qaybiyo su-aalaha marka isagaa qaybin doona marka waxaan u baahanahay qofka su-aasha weydiinaya inuu soo istaago waxa ustaadku midda qofka uu dooro wey inuu soo istaago si uu microfoonka usoo gaari karo kadibna uu halkan soo istaago marka magacaygu waxa weeye maxamed cumar duulaane waa la dhahaa qodobaan aada xoogaa saameyn ugu labaa jira de qof kasta waa 5 qodob waxaan filayaa dadka o dhan dee waa 5 qodob aada muhiim ay ahaayeen qodobkaas oo customs ama yani waxa weeye caadooyinka waxaa laga yaabaa qofku yani dad badan baa jira caadooyin xun leh tusaale ahaan baraha bulshadoo kale tusaale ahaan suuqoo kale inuu yani waxaan oran karaa wax saameeya fikirka yani go-aanka maanta go-aan qaadanayaa wax isdhahaysaa niyo maanta waxaa sameysaa de barnaamijkaas sameey adugu waa goals badan baa sameysanaysaa hase ahaatee hadhow adaptation waxaa la sameysay oo ahaa meherada inaad fadhiistid oo ahaa baraha bulshada inaad 3 habeen kusoo jeedid oo ahaa inaad film daawatid oo ahaa inaad siyaasad ama waxyaalo noocaas aad magaranaysaa caadooyinka hore ula soo qabsatay marka saan ku joojin karaa ama qofku ku joojin karaa ma jiraan yani siyaabo qodobo la tirin karo dhihi jiro ama qodobo adigu yani adi ahaan ustaad ahaan aad ku joojisay oo anaguna yani aan kaa faa'iidaysan karno su-aal waana salaamayaa horta marka hore meesha waan salaamayaa bacda salaam su-aashiida aan gudbaya su-aasha waxay tahay ustaad waxaan ka weydiinayaa waxaan nahay dadku ku adag tahay inay qaataan go-aanka marka waxaan u baahanahay talooyin aad iga caawisid si go-aan u qaadan karo marka waxaan taradid yani marka intii su-aasha filaya jazakum allah khayr assalaamu calaykum magacaygu waa Cawl Cabdiqaadir waxaan u gudagelayaa su-aasha intaanan u gelin waxaan is hal oraa ah oo mawduucii ugu badnaa ustaadku uu ka hadlayay yahay caadooyinka inaan dhalinyarada u sheego iyaguna ay nabadgaraystaan oradaas waxa weeyaan you don't decide your future you decide your habits and your habits decide your future
intaa kadib su-aashaydu waxaa weeyaan ustaad buuggaagan inay ka mid tahayna waan u malaynayaa waxaa weeyaan mawduuc yaro buugga ka mid ah oo ah shaqadaada qabso marka ustaad qof dhalinyaro ah oo hadir jaamacad ka soo baxay oo shaqana dee aan jaamacaddii waxba loogaga sheegin shaqo iyo waxay ku saabsan tahay inuu shaqadiisaas is-iibgeeyo oo hanto maxaad kula talin lahayd insha allah بسم الله magacaygu waa xamse ustaadka iyo dhammaantiin waan salaamaya hal su-aal baan ustaadka weydiin lahaa dhammaantiin waxaan ku fikirnaa isbeddel marka haddana marar badan waxaan moodaa markaan isbeddelkii go-aansano aynu ku dhaqaaqno inaynu samayno xamaasadii iyo isbeddelkii aynu samayno in maalmo kadib haddana aynu halkeeni ku noqono macnaha inay joogtayntii inay nagu adagtahay marka maxaa is leedahay ustaadeen waxaa nagu caawin kara qofku inuu sameeyo ama uu hawshii joogteeyo mahadsanti magacaygu waa xamse bismillaah magacaygu waa nadiiro cumar ustaadka iyo banalka iyo kasoo qaybgalayaasha waan salaamaya su-aashaydu waxa weeyaan marka jidka isbeddelka aad qaado ama aad bilowdaba inaad wax go-aansato qorshayaalna aad qorato mararkas waxa dhaca bulshadeena qorshihii aad qoratay ood waqtigaagiina ku nidaamisay oo waqtigaagii ku baysgaraysay baa waxa dhacaya ballamo aanad ku talagelin baa kaasoo duldhacaya oo aan lagu soo sheegin meelo lagaa casuumo oo aanad ku talagelin waxyaabo badan baa kaa hor imanaya markaad laada badiso ama mayada aad badiso aad shalay kan ka diido ood berri kan kale ka diideed oo adigoo ku baysgaraynaya adood waqtigaagii aad nidaamisay eegaya ayaa haddana gudaha waxaad ka dareemaysaa dad dhow oo aad ixtiraam iyo qadarinba u hayso markaad ka doorato waqtigaagii iyo wixii aad qorshaysatay qabashadiisa ayaad haddana gudaha waxaad ka yara dareemaysaa inaanad nafsi yara dareemin aad tirahay talow qofka maan xumeeyey talow maxay markaa talow isbeddelkaygii miyaan ku saxsanahay mise waan ku qaldanahay aan doonayna ustaadka weydiiyo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقوري مقعد ومحيدي بيت المحمد أستاذنا آد بدون هذا عليا وقتي سقالي وناس هوري سدح سؤالات كوكومن بن سدق دقة ويدين لها سؤال كوبات قفكو مركو سبدل سمايو إن يركب بعد عدنا دي بون نقطع تام حد كل ترين لهاي سؤال شلا بعدنا قف تستوي سبدل في مو بهاي صراحة أنا نقول عنكم كان أحسن هاي بكون ولا هاي محن سبدل وقبعهن هاي سؤال سدحات isbeddelku mararka qaar negative ma noqon karaa oo qofku xaaladii uu ku noolaa markuu ka tago xaalad kale inay uu ku noolaado negative ma noqon karaa oo kii hore ma ka wanaagsanaan karaa assalaamu calaykum waayahay waad mahadsantihiin lixdaas su-aalood ustaadkiinu ku wareejin doonaa 10 daqiiqo inoogu soo koobi doonaa su-aalaha waxaa jira 2 qodob oo aada u muhiima oon xagga dambe inoogu dhigay oo barnaamijka ka madax bannaan marka qofkii samir loon baa malaha 2 qodob helayaan malaynayaa ustaadkiinu kusoo dhaweynaynaa kusoo dhawo ustaad bismillaah runtii su-aalaad waaweyn bay haayeen oo iyaga laftooda mid kasta u baahantahay waqti kaloo 15 ka badan waxaan isku dayi doonaa inta karaankayga inuu soo koobo su-aasha koobaad ee maxamed cumar ina weydiiyey iyo su-aasha ahayd 2 su-aalood isku dhawaad xamse ina weydiiyey waxaan filayaa inaan israacin karno oo sidee aan wuxu joojin karaa ama dibadhegashada badan aan u dayn karayaa iyo su-aasha aad joogteynta oo kugu adkaata labaduba waxa weeyaan dibadhegashadana wuxuun bay caqabad ku tahay joogteyntii iyaduna waa joogteyntii marka waa 2 su-aalood oo ishoos imanaya oo maxamed iyo xamse su-aalahooda marka dibadhegashadu sideedaba waa uun mid ka mid a cadowiyada ama caqabadaha aan leenahay waqtigeenana xadaa inaan isbeddel la nimaado inoo diidayaa inaad wax dib u dhigato sidoo kale su-aal aan u iman doono su-aashii nadiira ee ahayd jeediyayaasha marka jeediyayaasha iyo dibadhigashadu waa 2 tuuga ugu waaweyn ee waqtigeena bay naga dayaca si guud 2 tuuga ugu waaweyn ee waqtigeena naga xada haddiiba ay tuug waqti jiraan weliba 2 tuug midna waa external midna waa internal mid dibaddu kaaga imaadaa midna gudaha dhabqiyayaasha iyo jeediyayaasha xagee kaaga imaadaan dibadda dadkaas asxaabtaas moobeeladaas waa dibadda dibadhigashaduna waa gudahaaga waa adiga qofka waxuu dib u dhiganayaa cid kaloo kaa dib dhigtay hawshaadi ma jirto waa adiga uun
adiguna waa qofka la rabo inuu isbeddelka sameeyo. marka horta labada arrimood inaan ku baraarugsanaana mar walba hadday isbeddel tahay iyo hadday waqtiga tahayba. marka joogteynta sida guud inaad wax joogteyso, waxa aad joogteynaysa ha noqdo amba waxa aad joojinayso amba wixii aad bilaabaysa isbeddelkii afartii qaacido ku yahayba, qaacidada afarta ka koobnayd ku yahayba, waxaad rabtaa inaad wixii joogteyso oo aanaad dib u noqon. waxa meesha imanaysa horta caada samaysiga markaa inaad horta ina wixii caado ku noqdaan. ina caado waxa aad ka dhigataana waa inaad mar walba sidaan hore u sheegnay inaad realistic ahaataa. waxbaha rumaysan haddii lagu dhaha bil iyo 2 bilood baa caado lagu usmaysaa. waxbaha rumaysan maxaad bil iyo 2 bilood ugu soo koobaysaa adigoo 10 sannadood laga yaaba inaad sidaas wax u soo waday. maxaad 2 bilood u rabtaa inaad hal mar dhanka kale ugu jeesato? eeg haddiiba 5 sano laga yaabo waxbaad doonaysaa inaad beddesho, waxaad beddelaysaa 5 sannadood baa laga yaaba inaad ku jirtay. dabeetana waxaan rabnaa 2 bilood 3 bilood intaan wadno inaad dabeetana aad weli tiraado wixii waan jeclaysan kara lahay. dee adiga waxba wadayba waba 2 bilood oo keliya, 2 bilood laftooda sidee baad u waday baa isweydiin lahaa. haddana goormaad samayn jirtay baa isweydiin lahaa. caade inaad samaysatad wax joogtaysa dhowr arrimood baa kaa caawin karaya. dhowrka arrimood waxaa ka mid ah goortaad qabanayso waxaas, sababtaad u qabanayso, halkaad ku qabanayso, iyo caqabadaha kale kugu xeeran sida aad u wajahayso. matalan waxaad rabtaa inuu akhrisiyo, tusaale maynu soo qaadanaynaa. waxaad rabtaa inaad akhrido intaad caadadu kaaga samaysmayso. hadhow markaad caadadu kuu samaysmato sida doontaad wax u akhriyi doontaa, qaab adiga ku gaara la soo bixi doonta haddaad doontada alifaysaa. laakiin horta marka hore waa inaad tidhaahdo waxaan rabaa wax cusub oo laakiin wanaagsan oo jeclay inaan isbaro. sidaa daraaddeed waxaan u baahanahay inaan noqdo sida suurtagal ilaah inaad samaysto matalan buug fudud oo aan jeclaysanayo. buuggan doona ku bilaabi maayo. buuggaas hadduu doono 100 page ha noqdo, hadduu doono 200 page. buuggii baan qaybinaya, waxaan ka dhigtay 4 qaybood. ilaa marka u horeysa buugga arta 200 page cabsidiiba markaasay kuu bilaabantay. waxaan sidee loo dhammaynayaa? ha eegin buuggan weyn 10 page oo horeeyaba calaamadso, intaas may badan tahay. kama soo qaad inaad buuggaad akhriyaysaaba yahay 10 bog. 10 bog misaad ku akhriyi kartaa? adigu isweydii awooddaada. maxaan haystaa 30 minute. 30 minute xilli maad heshaa? subaxii, habeenkii, galabtii. 5 salaadood taad ugu firaaqada badanta geli. xilliga ugu fiican waa subaxii haddii kuu suurto geliso. weli enerjigaaga iyo dhamma buuxa tamartaada iyo dhan. dabeetana waxaa jira 10 page ama 15 page waxaan akhriyi karaa maalin kasta xilligaa 15 daqiiqo. xataa hadday goobta kuu suurto geliso goob isku mid ah ku akhri. haddaanay kuu suurto gelin waxbaa isku dhibintaa. xataa dad kursi gaara guriga intood dhigataa tira halkaas saacad heblaayo markay gaadho waa inaan xilligaa intaasoo page akhriyaa. inta kuu suurtagalka waxba ha ku dayan hebelka 50 page maalin kasta akhriya. adigu caadad disaysa soo ma 5 page akhri. maalinta kale intaas may kugu adkaanaysaa 5 kale ku dar, 5 kale ku dar. laakiin samayso xilligaad ku dhammaynayso. markaad xisaabiso xisaabta sugayso midda bilaad buuggaa ku dhammaysay. buuggaa haddaad bil ku dhammaysay inaad weligaa akhrisay baa laga yaabaa. miyana wax wanaagsan inaad buug bil ku akhriday? haddaad 5 sano xataa akhrideen sanadka waa mise buug? waa 12 buug. 12 buug haddaad sanadka akhrido waa inta ugu yara qof wax akhriya laga rabo minimum inuu 12 buug sanadka akhriyo. waa halka ugu yar. wixii intaa ka dambeeya korun baad usii socon, dib uma soo noqotid. markaan caado samaysanayno si aan wuxuu joogteenno horta waa inaad adigu istaqaanaa. waynaga nina maxay ka bilaabanaysaa inaad istaqaano, isbaro, bal keligaa cidla iskula bax, bal horta isweydii xaalaadkaaga, qor oo waxaad tiraahda waqti maxaan helaa, goormaan mashquulahay, goormaan waqti helaa, maxaa ugu badana waqti iga qaataa, maxaa faa'iidaa, maxaa khasaaraa. markaad sidaa u xisaabtantid aad si dhaba su-aalo isweydaad keligaa naftaada la baxdo kadib waxaad tiraahdaa markaa maxaa rabay inaan caado samaysto? salaada miyahe, akhriska qur-aanka, calaamadso, dabeetana geli meeshaad heshay. qof kuu samayn kara jadwalka noocaasa ma jiro. professorka adduunka ugu cajiibsanaya arrimaha ku takhasusay intuu jadwalka u keeno kuma odhan karo haddaad intaa raacdo xilligaa intaa akhrido waad samayn kartaa. adigunbaas yaqaana. marka taasi waa midda aan wax ku joogteen karna. amba waxaan joojinana ha noqdo amba wax kale. 5 arrimoodna mar walba ka fikir. caqabadaha deegaanta kaa caawinaysa. maxaa sababaya inaanay ii suurto gelin? isweydii maxagga waqtiga, maxagga caqabadaha, maxagga faamiliga, maxagga caafimaadba. inaad su-aalahaasoo dhan isweydiiso. marka labadaa su-aalood ee joogteynta taasaan islay. ama su-aasha go-aanka ayna weydiisay maymuna sidaan go-aan ku qaadan karaa? iyada lafteeda tan uun la xidhiidha. go-aanka laba weydba waan idhi, laba si uu dhacaa. markaad bilaabayso ku dhaca ah inaad wax ku dhiirato, iyo markaad joogteynayso ku dhabar adeega. keebaa kugu adeeg talo?
ma inaad wax bilowdaan kugu adag mise inaad wax jabto labaduba waa go-aano haddii ay kugu adagtay inaad wax bilowdo waa inaad isweydiiso horta maxaa sabab waxaan aan doonayo inaan bilaabayo sababaha aad u bilaabaysaa maxay yihiin waayo sababtu waa tallaabada labaad ee buugga aan kaga hadlaya ee 5 qodob ku jira buugga tallaabada labaad waa sababta aad bay muhiim u tahay matalan tusaaladan soo qaada akhriska oo kale xilliga iskuulka aan dhigan waxbaan akhrinaa deetana su-aal baa la weydiiyey buugga ku qoran oo ahayd xilligan iskuulka dhigan jiray aad baan wax akhriyi jiray buugaag badan baan akhriyi jiray maalinta jaamacadda dhameeyey buug ma soo qaadi karo maxaa isbedelay wax kale isma bedelan sababtoo ma isbedeshay berigaa hore mise sababada wax ku akhriyi jirtay waalidkaaga haye inaad qalin jabiso inaad imtixaanka baasto inaad macallinkaaga ka farxiso inaad asxaabtaada la jaan qaado sii wad hadda laakiin maxaad wax u akhriysaa jaamacadda waa damaysee waxba dee hadda iska daa waxba akhriya muhiima maaha ilaa aad sababahaasoo kale ama kuwa ku xog inaad hesho go-aanka ku dhiciisa kuma suurtagelayo ama ku jiro marka horta waa inaad asbaabta heshaa waa inaad raadiso sababtan macnawiyaadkii oo dhan waa inay kuu muuqdaan kadibna waa inaad isweydiiso caqabadaha ii diidaya waa maxay saddexdii caqabadada go-aanka maxay nidhi caajis cabsi iyo cudurdaar saddexduba xaggay ka yimaadaan adiga iyo naftaada yaa cudurdaar kaa daweyn kara cidna yaa caajis kaa bin kara cidna yaa cabsi kaa bin kara oo maxay ka baqaynaa waxaan ka baqaynaa isbeddelka laftiisa isbeddelka ma laga baqaa waxaa laga yaabaa su-aalaha qaarkood inay isweydiino su-aal walaalaan usoo socdaa wuxuu yidhi ka warran haddii isbeddelka laftiisu iiga sii daro sooma waa su-aal muhiima runtii aada u muhiima in badanoo inaga mida waxaaban isbeddelkaba u samayn weynaa isbeddelka laftiisa ka baqaynaa mararka qaarkood sooma waxaan ka baqaynaa talo waxaan haystaa bilow ka fiicay waxaan tegayo haddiiba aad ku qanacsanta waxaad hayso yaa ku yidhi isbeddel hambal iyo mafruuq ha isbeddelin haddaad okayta ha isbeddelin matalan shaqada maxaa loo shaqeeyaa inaad baahi jirto inaad jeceshay iyo inaad ku wanaagsanto saddexaas waa shaqa loo qabta soo ma okay shaqaad haysaa markaa shaqadii baad nacda waxaad rabtaa inaad ka tagto su-aashu waxa wey maxaad shaqadii uga tegaysaa waa nacay shaqada okay shaqo kale maad heshay may adigoo shaqadaada isku jira oo shaqadaada haysta haddaad diyaariso mid kale oo wax kuu muuqdaan intood go-aan qaata haddaad ka qaata maxaa iga khasaaraya carruur baan beelaya may wallahi guriga hooyadii baan weli joogaa markaa shaqa abuur waa la iman karaa inaad su-aalahaasoo dhan isweydiiso dabeetana aad tiraahdo maxaan ugu bedelayaa waxaasoo dhan waxay noo diiday waa cabsida in badanoo inaga mid iyagoo haysta fursado ka waaweyn baa laga yaaba inaanu shaqo weligii ka tegay shaqadana ma jeclaa dulmi badan buu tirsanayaa aad buu dhibsanayaa 100 fursadood buu haystaa xataa carruurta iyo biil badan waxa laga yaaba inuu ka warwareyn haddana waxa laga yaaba inuu weliga shaqada ka tegay sababtu waa maxay wuxuu isleeyahay billaad tani kaaga fiican tahay marka yes cabsidu waa caqabad laakiin adiga is og inaad iska kibrayso ood iska hanqaltaagayso iyo inaad okay tahay amba aanad waxaad ku bedelato waxaan aanu jirin marka isma lihin ujeedadu maaha isbedelku macnaha waa bedelun wax kasta bedel macnaheedu maaha inay tahay inaad soo toosood maalin kasta wax bedesho laakiin waxaan u bedelaynaa waxbaad doonaysaa inaad bedesho haddaba bedel haddaanaad doonayo inaad bedesho hambalyo halkaaga ayaad joogaysaa su-aasha go-aanka markaa waxaan jeclay inaan dhowr arrimood ka sheegay laakiin xirfado badan baa jira muhiima oo iyadana su-aashaas go-aanku waa laba mar waa qaadasho marna waa gaadhis decision making iyo decision taking maxaa u dhexeeya waa isku mid ma laha decision making ama go-aan gaadhis iyo go-aan qaadasho maxay ku kala duwan yihiin waa isku mid laakiin haddii aan isnaano waxoogaa si kala duwan waxaan odhan karnaa midna matalan shirkadaha iyo arrimo markaad qorshe u baahanyay aqoon u baahantahay making go-aan baad gaadhaysaa laakiin shaqsi haddaad tahay go-aan baad qaadanaysaa go-aanku waa khud qarar qadac go laakiin maxaa ka horreeyey xog baa ka horreysay waxoogaa xogaad heshay su-aalaad isweydiisay dabeetana waad heshay waxaad haddana tiri may xogti waan hay laakiin xirfad baan u baahnay go-aanada qaar xirfad bay kaaga baahay soo ma dabeetana waxaad xirfaddii waan baranaya labadiiba waad heshay haddana waxaad xamaasad baan u baahanay xamaasadii gudaha dabadda haddaad dabadda ka weydatii gudaha saddexdaa haddaad hesho dabeetana waad dhaqaaqday marka go-aan macnaheedu waxa weeye soomaali waa maxay goyn go-aan maxaa laga keenay goyn dhammaan xataa decision maker kelmadda asalkeeda greeg ee ka timid waa maxay waa wax la jaraya asalka kelmaddu wax la jaraya macnaheedu waa ficil maaha ka fikirad
haddaad weli ka fikirayso ad leeda go-aan maan qaadanayaa in baa yidhi sigaarkaan iska daynaya oo walaal maxaa iskaga dayn weyday waan iska dayn kari waayo oo maad go-aan qaadatay 100 jeer baan go-aan qaatay may 100 jeer baad ku fikirtay go-aanaad qaado in badan waxaan u malaynaa inaan go-aan qaadanay inaan ku fikirana go-aan macnaheedu waa maxay waa qaad amba jar khalaas waa ficil ama wixii ka horeeya waa qorsho waa fikir magac kala sii markaas sababta go-aanka waxaa kuu fudaydinaya waxa weeyaan inaad qaadatid laakiin ha iska qaadanin maxaad ka yara horreysiin horta xogtaa yara raadi inaad xirfad u baahantahay waxyaabaha qaar xogna uma baahnid xirfadna uma baahnid bal wadi xun baad rabtaa inaad iska dayso waxaad awoodaa inta subaxa kacdo inaanan dib ugu noqon haddana mid kalead awoodaa taas way shaqayn weyda waxaad awoodaa tadriij inaad samayso soo ma step by step horta asxaabtii aan ka hadho horta waxa i xasuusinayo dhan aan ka fogaado horta wax kaloo aan ku beddesho aan samaysto labadaa midba waad samayn kartaa waa adigaa isbaranaya adiga waa inaa istaqaanaa ma juhdigaa xooggan u baahanaya dadaalka waaqiciga mise subaxumaa soo tosaa go-aan maqaataan labada waad awoodi kartaa labada waad awoodi kartaa su-aasha afaraad ee ahayd shaqadaada qabso waxaan filaya waxna waan ka taabtay oo cawilina weydiiyey waxna waan ka taabtay laakiin ujeedadu ma aha shaqada wuxuu maan ujeednaa un yes hamigaaga iyo hankaaga u dambeeya muxuu yahay ma inaad weligaa shaqaalo noqotaa mise in adiga laftaa lagu shaqeeyo taas waa hanka aada leedahay laakiin meeshaad ka bilaabaysaa dhib ma leh meeshaad doonta ka bilow shaqadu waa sharaf dadaal laakiin adigoo shaqaynaya ayuu isbeddelka imanaya isbeddeladaasay shaqadu ka iman haddiiba aada socoto sidii aan sheegnay qodobadii qaacidada la soconi haddiiba aada socoto shaqaduna way ka mid noqon doontaa laakiin macnaheedu ma aha adigoo shaqaynaya hal mar intaad soo tooso inaad tiraahdo waxaan rabaa inaan isbedelo kadib xaggaan ka bilaabayaa shaqadaan rabaa inaan ka bilaabo kadibna shaqo abuur baan sameynaya maxaan ka bilaabaya waa inaan berri shaqada ka tago soma marka yes laakiin waxaad u baahan tahay dhalinyar baa tahay waxbaad baranaysaa meesha doonta wax ka bilow shaqee si xooga weliba shaqee 2 shaqo ka shaqee laakiin hankaaga ugu dambeeya iyo halkaad higsanaysa iyo inaad socoto maa muhiima ama su-aashii u dambeysay ee muxyidiin su-aalaha dhowrkaas kugu jirtay dib u noqoshada yes dib u noqoshada waxaa keenaya arrimo badan waxaa keenaya in aanad marka hore sababta si fiican u garanaynin in deegaantaadii aanad waaqic ahayn weli deegaantii ku jirto nin baa 100 qof dilay diinta iyo xadiista ku hayno dabeetana wuxuu yihi toobad ma leeyay may buu ninku yidhi kii kalena muxuu ku yidhi markii dambe ugu dambeyn markuu kiina dilay ka bax baa lagu yidhi meeshaad joogto oo deegaantaada bedel dabeetana dhexduu ku dhintay waxaa laynoo sheegaa in malaa'igtu ee isku qabsatay akhiiran ninkaasi dhan buu u dhawaaday labadii magaalo jannadu galay ahlu janno noqday sheekada wax badan oo kale laynaguma sheegin laakiin casharada ugu badan ee ku duugo waxaa ka mid ah muhiimadda deegaantu leedahay wax badan waxa inagu celiyay isbeddelka maxaa ka mid ah deegaanta adigoo sidaadiya adoo waxba aan wax badan ka bedelin ayuumaad rabtaa inaad isbeddesho dad badan waa u shaqayn kartaa in badanna uma shaqayn karto ina waa ida ogaataa halka caqabada ka timid markaa dib u noqoshada taasaa keeni karta waxaa keeni karaya adigoona sidoo kale taraakumkii iyo kambonkii aan ku xisaabtamayn oo dabeetana markaad wado 2 bilood 5 bilood 6 bilood natiijad arki weyday waayo waxaad higsanaysaa waa natiijada ee processka maaha process better than productigu wuu iman doonaa natiijadu way iman doontaa ha ka warwarin enjoy the process ku raaxaysa qabashada muhiimaddu waa qabashada muhiimaddu maaha dhamaystirka taas waa in leynay ilaa dhammaadka waan halgamaynaa marka haddii natiijo aad raadinayso iyaduna dib u noqoshaday keentaa in badan waxaan dib ugu noqonaa waa maxay natiijadeen weynaa lacag baa ma arkee caanba maa noqone mana aqoon badan baa haya miisaanka baygamuu dhicine weliba wuxuu doona isbeddelkaas ha noqdo laakiin haddii aad processka iyo qabashada ku raaxaysanayso oo aad macnihii iyo asbaabta heshay waad iskaga jiri doontaa natiijadana kama warwaraysid akhiiranna waad guran doontaa midhaheeda biidni illah qof kasta miyuu isbeddel u baahan yahay haa laakiin mararka qaar waa laga yaabaa bay nidhi inaad u aragto inaanad waxaad bilowdo amba waxaad joojiso aanay ku muuqan maasha allah laakiin mar walba waxaad kordhiso iyo waxaad soo biiraysaa kuma taasna waa development horumarka wax ku ka imaadaa dal ma jira istaagaya ha haddii aad istaagto fikta gaadhay waxaad filataa waa soo dhaco haddaad fikta joogto maxaad filataa waa soo dhaco waa haddaad u malaynaysa fikta joogto
haddaanad ficta jooginna maxaa kuu hadhay inaad ficta gaadho marka haddaad isku malayso inaad ficta gaadhay uma baahnid isbeddel laakiin haddaad isku malayso inaad halgamayso weli fare kaama qodnaa mar negative ma noqon karaa isbeddelku horta isbeddelka waynagii nidho marna waa lagu doori oo marna waa habaar marna waa duco haddii kii tabnaa yahay haa isbeddelku waa negative laakiin ka togan laftiisa mararka qaar negative inoola eg amba tabnaan waa goorma waa marka aynaan filashadayna aanay nagu jirin xanuunku waxaan u malaynaynaa inay ku raaxaysanayno waxaan wanaagsanaan raadinaynaa raaxo maaha roog iyo raaxo iyo waxa naftu jeceshay waa waxaan kale iska bedelayno waxaan ka tagayna nafta jeceshay waxaan doonayna nafta ma jeclaa adiga iyo naftaada haddaad ogaatay inaad kala laba tihiin iyo sida aad gacanta isku qabsanaysaan oo wada shaqaynaysaan isbeddelku negative ugu noqon maayo laakiin haddaad u malaynaysa isbeddelku inuu yahay roog la isku dhigayo waa xanuun akhrisku wax fudud miyaa haddaad waxba akhriyi jiray buugina damayso wax fudud maalin kasta inaad buug akhrido maalin kasta inaad jimci samayso maalin kasta inaad 5 salaadood tukato qur-aan akhrido dhammaanteed ma fududa laakiin ka waran haddaan maalin kasta iska hordo haddaan tv iska daawado 5 saacadood yaan awoodi karayn qof kasta waa awoodaya ka waran internetka haddaan facebook iyo twitter dhammaan iskaga baxo 6 saacadood aan u kala nasto ilaa inta qadadii tagayeen qof aan uma baahnid caado u samaysatay ha ka warwarin uma baahnid juhdi badan iyo iskuul inaad u gashay iyadaa naftu kugu yeedhaysa wax kastoo aan macno lahayn naftu maxay jeceshay fun and easy waxa fudud ee naftu ku raaxaysato laakiin waxa dhabtu waa maxay waxa adag ee naftu dhibsato marka isbeddelku haa negative wuu eegaanayaa haddii marka hore filashadaadu ahayd in roog la isku dhigayo dhammaystiran wow ma sha allah ilaahay miisaanka xasanaadka ugu daro ustaadka kulley dabarku waa dheeyahay baan u malaynayaa caawa filashadii aad qabteen markaad meesha imanaysaan inaad wax ka weyn hesheen baan filayaa soo ma bal inta filashadoodii wax ka weyn ay uga soo baxday gacanta taag inta filaysa in wax laga yar hakaradayna wow thank you so much aad baad u mahadsan tihiin waxa uu ahaa kulankeenii saddexaad ee barnaamijkeena raadreeb oo ujeeddadiisu ay tahay tala wadaag iswaraysi iyo wada sheekaysi in badan baynu ku jirnaa fiilasha kala duwan ee nolosha hadhiyaha baynu waynu mashquulsannahay ujeedka barnaamijkan waxa weeye mashquulka adduunyada inta laga soo yar dhex baxo bal qaabka nolosha aynu doonayno inay berito mustaqbalkeena aynu u samaysano inaynu bal ka tashanno oo aynu iska waraysano oo aynu xog ku kala aynu isku weydaarsano mawduuca ustaadku ku qornaa waxa uu ahaa jidka isbeddelka waxa mawduuca inoo daadihinayay ustaad Ibraahim Waaberi oo ah qoraaga buugga dhabar adayg ee horteena yaala oo haddaad u baahan tahay aad ka heli karto xarunteena Hill Press barnaamijka waxa martigeliyey oo aan aad uga cudur daaranaya marka hore inaan ilaabay xarunteena Hill Press ilaahayadana ha barakeeyo aqoonta iyo cilmiga dhex yaalana cid danaynaysa ha keeno intaas waa intaa haddii aan markaa jidka isbeddelka mawduuca aynu ka hadlaynay aan soo khulaaseeyo oo aan 2 kelmadood 3 kelmadood ku soo khulaaseeyo ama hal tusaale aynu ku soo gabagabayno su'aal baan idin weydiinayaa biyuhu marka ay socdaan soo oreed maaha waa caadi wax uramay sameeyaan maya laakiin biyuhu hadday qulqulka joojiyaan oo ay fadhiistaan waliba biyaha noocooda macaan iyo kuwooda qaraariba kuwa qaraari maxay isu bedelaan iyagu milix bay isu bedelaanba kuwa macaanina maxay isu bedelaan way uraan oo way qurmaan oo siifad bay sameeyaan isbeddel haddii aad samayn weydo ood nolosha hore u socon weydo maxaa kugu dhacay adigana khatar baa meesha maraysa marka isbeddelku waa khasab ma aha baryo dhaqaalahaaga inaad wax ka beddeshaa waa khasab xidhiidhadaada inaad wax ka beddeshaa waa khasab yacni aqoontaada inaad kordhisaa waa khasab ma aha noloshu baryo mahaba isbeddelkana sidiisaba adoo fadhiyo laguma keenayo lagu odhan maayo huno inta yar baanu kula jeclaanay oo hadiyad haadun qaado no adaa tegaya saaxiib adaa tegaya walaal adaa soo dhacsanaya goos dambeedyada yaalaan quruxdu halkaasaa lagala soo baxaa cidda aan halkaa kala soo bixi karayna da waanu ka xunnay I'm so sorry maca alasaf ashadiid bay carabta odhan jirta thank you so much aad baad u mahadsan tihiin intaanu ku kulmayno kulankeena afraad ee barnaamijkeena raadreeb waan sugiba kara laanahay thank you so much aad baad u mahadsan tihiin